waxaan rajaynayaa qaybaha kala duwan ee Jubbaland iyo dhibaatadii wixii shalay taagnaa inaan kulligood xal laga gaaro waxaa ka mid ah arrinta gobolka Gedo oo Jubbaland ka mid ah oo qaybta ugu weynahay faragelin dheer oo ay dawladda xilligaa jirtay ku samaysay federaalka waxaan rajaynayaa dawladdan hadda timid markii ay dhammaystiranto in kiiskaasi la xalliyo arrinta Jubbaland gacanteeda ay ku soo noqoto waanan ku wada hadalnay dadka reer Gedana kuwa maamuladana waxaan leeyahay idinkoo maamulkiina oo shaqada sii wada waxaan rabnaa in dhaqanka dawladnimada la hagaajiyo wixii dadka dhibaato dhexdiisa keenayna la xalliyo waana idin iman doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa ugu wanaagsan ee dadkaas lagu xallin karo ee lagu hagaajin karana waan samaynaynaa dadkuna inta loo magacaabayo qof dawladnimadaasi meel ma gaarayso dawladnimada asalkeedu Soomaaliya waxay ku heshiisay nidaam federaala waxay ku heshiisay saddex laan oo dawladnimo oo ah dawladda dhexe tan state-ka dawlad goboleedka tii dawladaha hoose oo ay noqonayso in loo dhiso council-kii oo qofka degmada joogay ee la soo doortay uu ogaado cidda xasaanada ka qaadi kartay cidda eri kartay qofka la xisaabtami karay inay yihiin kuwa isaga la jooga ee shacabka ee iyagu soo doortay ee odayaasha ee golaha deegaanka la dhistay aan ahayn in warqad loo soo qoro iyo xisaab meel kale kaga yimaado aan ahayn qofku markaas wuxuu garanayaa inuu iska ilaaliyo oo uu garto waxa maamulaya iyo waxa talada la leh inay yihiin dadka shacabka ee uu mas'uulka ka yahay taasaan u samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo deegaanadoo dhan aanu dadajin doonaa lana samayn doonaa in la dhaadhiciyo oo maamuladaas haddii Ilaahay yiraahdo hoos loo dhaadhiciyo waxtar bay inoo tahay wanaag bay inoo tahay waxaan rabnaa inaan laga soo watayna waxay tahay dadkaas oo isku xidhan oo dawladnimo ilaashanaya oo mid ah oo xor ah oo socon kara oo meel batay kara insha Allah in aan aragno oo aan ka shaqeyno midaas aasas